aniga wuxuu yahaa saaxiib weyn oo wanaagsan wuxuu yahaa say wanaagsan ixtiraama aanu isjecel lahay waxay ahaaytay arinta markaa socotay siyaasadda wax walba Axmed waanu ka wada sheekaysan jiray marwadiisii reerkiisii xaaskiisii caruurtiisii anagu Axmed sidee baanu u naqaanaa iyo maxaanu ka naqaanaa muddadaasna waayo farabadan ayaanu soo maray wanaagsan isku faraxsan saaxiiba say fiican aaba fiican mujaahid fiican madaxweyne fiican siyaasi fiican dalkiisa iyo dadkiisaba jecel Axmed anagoo yaryar baanu dabcan iskuursanay markaaba siyaasadda wuu ku jiray intii ka dambeysana ilaa maantadaas aynu joogno siyaasadun buu ku jiraa ama tii Soomaaliyeed ha ahaato ama ta Somaliland ha ahaato dee u badnaa hadday halgankii tahay 8 sanadood oo dhowdhow halganka ku jiray inta uu siyaasadda ku jirayna anna waan yara carruurtidna way wada yaryaraayeen qaarna ma bay jirin ikhtiyaarka qaar marka waxa la isweydiin karaa la oran karaa aaba nooceeyo Axmed ahaa midlan isagoo maqan oo aan nala deganin oo nala joogo kulliga wada yaryar rahay Axmed nagama maqnaan jirin dareenkiisa iyo hadalkiisa iyo xidhiidhkiisu mar walba wax nala socda ayuu ahaa midlan bariga telefoonnadan iyo waxaan sidan umay saalaneyn WhatsApp kan iyo social media dan faaska ah lagu xiriiraya ma jirin Axmed waxaan filayaa kulli qaar dad kalena way jireen laakiin dadkii ugu horeeyay inuu ajeelada ku hadlo qof ama diri dhaba ka imanaya halganka frontka ka imanaya ama Addis Ababa markaa haduu joogo ka imanayay oo Axmed caruurtiisa iyo aniga ama ajeelada noo soo duubi jirin ama waraaqa noo soo qori jirin aanu waayihiisa nooga sheekayn jirin aanu annana diri jiray midlan caruurta xataa homework ay loo soo dhiibo Axmed marmar buu frontka oran jiray igu soo dira soo markaa horta caruurtaydu caruur ilmo waliba dee aabiyo hooyo u baahayay oo la koro laakiin hadduu aaba uun isagoo maqan caruurtiisa koritaankeeda iyo akhlaaqdooda iyo korintooda iyo duruustooda iyo wuxuu sheegidooda uu involved aha ama ku dhex jiray Axmed habeentaa nagama gabin wuxuu ahaa aniga wuxuu yahaa saaxiib weyn oo wanaagsan wuxuu yahaa say wanaagsan ixtiraama aanu isjecel lahay ubadka iyaga maxay ahaaytay arinta markaa socotay siyaasadda wax walba Axmed waanu ka wada sheekaysan jiray wuu iga warrami jiray had iyo jeer wuxuu igu dhiirin garin jiray barka warwar badan baa nagu jiro wuxuu jiray dee inta badan halganka frontku ku maqnaa hadduu ku maqnaana wuxuu ku dadaali jiray had iyo jeer dhibaatooyinka kala kulma halka ama waxyaabaha ku jiro inaanu soo gaarsiine wuxuu iska dhigi jiro ajaliyada noogu soo qaban jiro nooga sheekayn jiray wanaaga halganka uu leeyahay qadiyada aynu ku jiro inaynu dalkeena xoreynayno aad iyo aad isugu dhow ayaanu nahayo waxaan la yiraahdaa gaaladu fiirahdo very close haddaanu go'aamo waaweyn qaadanayno waanu wada qaadanaa haddaanu maxay ahaaytay qof aanu aragnay inuu talo u baahan yahay talada kulligeeyo waanu ka wada qayb galaa marka siyaasadda badan ee Axmed ku jiray pressure badan xagga reerka ma xagga dalka ka saaray annagina waxay naga dhigtay dad strong ah xoog weyn oo isku duuban oo wada shaqaysta oo wada hadla oo wada sheekaysta oo maaragtay isla taliya taasay naga dhigtay